waxaan hore u sii ogeyn in uu dhacayo meherka Xamda Cabdi Kiinaan Xamda Kuweyn balse kansal garoobay. muddadii ay shaqeynaysay Soomaalida shidan waxaa ku xirmay dad kor u dhaafaya 100,000 oo qof. daawade ka mid noqo dadkaasi oo nagu soo biiro subscribe saar Soomaalida shidan. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Soomaalida shidan aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa muddada aynu shaqeynayna waa sanad sida habsameeda leh oo aad noogu soo biiraysan mar walba oo subscribe u saaraysan channelka Soomaalida shidan intiina cusubna waxaan idin leenahay ka mid noqo Soomaalida shidan. waa tahay daawadayaal waxaan maanta barnaamijka ku soo qaadan doonaa ama nuqulkan fanaanada Xamda Cabdi Kiinaan. horta Xamda Cabdi Kiinaan fanaanan lama oran karo fanka way ka fariisatay iyadoo afkeeda ka cadayso waxay dadku fan uga dawadaan waa qalad. Xamda Kuweyn waxaa la sheegay horta kal sii horeysay warar suuqa shuxshuxa oo la isla marayay waxay sheegayeen in Xamda Kuweyn uu nin guursado ninkaas dartiisna ay fanka uga baxday. waa taa ayadoo kacaysa Snapchat soo gashay tira Soomaalidu hal dhig bay wax ka maqlaanay waa inaan u soo jawaabaa runta aan sheegaa oo arrinka way beenisay. Xamda Kuweyn fanka waxay uga baxday hadana la yiri ganacsiga samaysanaysa oo ninkii uu abuurayay isagana wuu uga baxay. arrinkiina way naga xaqabtirtay. fanka adigu muddo badan bay hadda ka fadhidaa waxay ku nooshahay dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul. marka waxaa goor dhaweyd soo shaac baxay sawirada xaajigeeda oo ay soo bandhigtay kulleeto hore looma soo bandhigin laakiin hadeer ayaa la soo bandhigay oo social media iyo wixii YouTube oo warka gaadayo dhan ay la soo wada boodeen. marka arrinkaasi waxaa hadana la shaaciyay in ay arooskeeda uu ka dhici doono magaalada Hargeysa oo lagu balansanay meherkeeda inuu ka dhaco halkaasi. sabdiga annaguna hambaliyada meeshan la fadhino waxaan doonaynaa inaan arooska halkaas ka daawano iyo meherkaasi cid ka soo qayb galaysay sida uu dhacayo maadaama Xamda Kuweyn ay tahay ayna ahayd fanaanad hore oo maqam ay ku dhaxleedahay fanka iyo bulshadaba maadaama ay ahayd fanaanad soo jeedasho leh. runtii Xamda Kuweyn markay ka fariisanaysa fankana waxay ahayd fanaanad aad loo jecel yahay oo dadku markay sidaa u jeclaadeen ayay fanka isaga fariisatay loo baahan yahay. fanaaniin saas oo wada fariista fanka way jiraan waxaa kamid ah Cabdifataax Yare, Fartuun Cumar, fanaaniin kale oo iyagana fanka markay ka fariisteen ku soo laabteen sida fanaanada kale ee Hani UK iyo fanaanadan kale oo ayadana ku sugan dalka Norway oo fanka intay ka fariisteen dib ugu soo laabdeen waa Tufax Darajo. daawadayaal marka Xamda Kuweyn fankeedu waxa uu soo bilowday sanadii 2012 ayuu soo bilowday oo waagaas social media sidan dalku uma uusan wada gaarin inkastoo uu jiray heesaha xataa telefishinada ayaa laga soo deyn jiray oo heeso ma aysan baahsanaan jirin. horaantii adoo 12 ilaa 12 horaanteedii dabeeqada 12 soo gashay xidigaha geeska ayayna ku asaasantay. runtii heeso badan ay qaadi jirtay way jirtaa laakiin heestii aan ku maqlay waxay ahayd heestii ay ugu jawaabaysay fanaanadii Felis Cabdi sida lagu soo qoray ma ogtahay gardarane. heestan waxay ahayd Garaadlay oo iyaduna Felis Cabdi waxay u qaaday baa la yiri fanaanadan kale ee fanaanadii kale Ikraan Caraale waagaas adduunkiina ma horta taxanuun noqday. barnaamij ayaan inkaga soo diyaarin doonaa hadduu ilaa yira taariikhii fankii 2010 wixii ka dambeeyay iyo xasaradii ilaa 2008 iyo 2009 ayaa xasaradu aad u soo bilaabatay. waayo social media markaas soo bilowday xitaa waxa warbixinadaas laga sheegi jiray idaacadayaan waxba idinku daalin oo halkaas idinkula leexanina waxaa jiray la rabay in uu dhaco markii aad war bilowdo moogtahay badii ama faracyo ayuu yeelanayaa warkii meel bay ku dhiibaysaa markaas waxa arkaysaa waqtigiiyo isku soo gabaabsiyo gamyir. marka daawadayaal Xamda Kuweyn in arooskooda uu ku dhaco magaalada Hargeysa ayay ahayd oo arooskaasina fanaaniin fara badan ka soo qayb galaan. kulleeyta arooskii waa uu baaqday oo uu cancel garoobay. sabtina waa la soo dhaafay kulleeyto arooskina ma uusan dhicin sababaha oo u baaqdayna lama sheegin maadaama la doonayo inuu sabdiga baaqdo. kulleeyto waxyaabo si way noqon karaan oo dib u dhici kara laakiin hotel inta la booking gareeyo qarash la galo waxyaabo fara badan lagu heshiiyo haddana hadduu baaqdo waa hawl kale. Xamda Kuweyn iyadoo way iskaga tagtay Soomaaliya waxay ku sugan tahay dalkaasi Turkiga isaga noo shaayay inankeeda oo magaalada Istanbul ayay joogtaa. mar ayaa la xaqto leeyahay fankii ku soo laabanaysayo ninkii ayaa kaga baxay guurkiibu kaga baxay sidaas darteed waatii iyadana ka soo jawaabtay Xamda Kuweyn oo tiri aniga fanka mar baan ka fariistay marnaba kuma soo laabanayo. horta qof hadaad wax deynaysid ama aad ka bixisay adiga ka soo go'aan la rabaa ma ahane in aad qof madaxiis u sameeyso waa laga wanaagsan yahay. taasina maba ay sadhicin boo iyadaaba afkeeda ka beenisay Xamda Kuweyn oo tiri anigu fanka si toos ayaan uga baxay guurkeedana
wax dadku bulshada sidaas loola sii wadaagaya maahana waa arrimo faamiliyo hoose qof caanuuna ahaan jirtay sidaas darteed arooska markuu dhacay dhegta loo daagaa markii uu baaqdane waxaa loo sameynayaa dhaliilo badan iyo xumaato badan waxaa la leeyahay arooskiyaa ka fashilmay arooska ninkii waa arrinka run buu ahay marka dadka Soomaaliyeed waa dad xumaan fiirisa mar walba oo dhanka xunbis wax ka eego dhanka wanaagsanna maaragtay aan marnaba aanan ka eegin wixii sax markay yihiin waa sax waxa markaada hubinna ma ahan in saadaal been aad ka bixiso oo dhahdid dadkii istagaalay xamdi kuweyn mar walba xaajigeeda way la wadaagtaa dadka si sawirad u soo bandhigta markasta way soo bandhigtaa adiga naftirkaaga idaawanaya waxaad doonaysaa inaad qorsheyso ama safar inaad gashaad rabtaa ama inaad aroosataa rabtaa intiiba waxaa damacday in aad ku dhaqaaqdo balse waxbaa si kaa noqon kara oo baaqan karaa aroos waxaan arki jiray markii uu meherku dhici rabo baaqanayo oo la qaylinaya oo fashilmaayo wixii dhamnaa sida filimada aynu ku daawanay markii sheekada Soomaalida sheekadaas ay keeneen waxay dhin arooskii baa fashilmay waa la cancel gareeyay hadda suuqa intaas baa isla yaayso kulleeyta wax bar oo badan kama soo bixin laakiin inta xogta aynu baarnay arooskaasi in uu baaqday oo dib loo dhigay laakiin xilliga la qaban lahaa aana la soo shaacin wixii ka soo kordhana dib waynu idin kala socodsiin doonaa oo idin kala wadaagi doonaa hadduu alla yiraahdo xamdi kuweyn maadaama fanaanada hore ahayd oo fanaanad la wada jecel yahay ay ahayd oo fanaanad bulshadii markii ay soo baxday ay saas u soo hana qaatay ay fanka ka fariisatay waxyaabaha keenaya inay bulshadu aad u hadal hayaan ay jeclaadaan xamdi kuweyn fankeedu 16kii 17kii 18kii fankeedu sidaas buu hal mar u soo booday 3 sano ama 2 sano ugu dambeeyayba markii xidigii geeska fanaaniinta Yurubgeeyay qadar silmay waxa ay ka kala tageen heesii macquulka ah oo dhanba xamdi kuweyn baa la wareegtay oo hawada u galay dibna waxa kaga soo biilay kulleeyta fanaaniin kale Ifraax Hargeysa Ifraax Tolmoon Ogbaad Aragsan waa la badan yahay meesha Asma Sabamba oo markii dambana iyadana la midooday Asma Love oo fanki ma aragtay sidaas buu hawada ku galay fankooda Ogbaad Aragsan iyo xamdi kuweyn waxyaabay ka faa'iideysteen waa qadar silmo iyo waxa fanki xidigii isaga fariistay iyo Yurubgeeyo oo kulleeyta ugu cadcadaayo mar walbana la jeclay markay soo heesaan Asma Love iyadu way joogi jirtay waana la yaqaan laakiin waa fanaanad daraamo badan oo dhanka daraamada fanaanada soo badan heesaheeda aad uma sii cadcad laakiin iyadana waa fanaanad la jecel yahay heesaheeda waa la dhageystaa laakiin hadii لجنة ما لديها المرقرحان فنانين تا وحقوه ري يربجيني قطر سلمى حمد كوين مركي قرحة فنكوي كفريستي كل تدي أروساني سامي أروستا أما مركض عينه وحن لنا جوركين وجور غير جوركين وجور النجي مركا وحبة مارتي هذا لا ذكر إني وتشجنيان إلى ما بقى عم بتوي وبرينا ننو حلي دربان تنت علاق دل مركا سلبرتي تا أما عان تهاي أما أكتر تهاي أما فنان تهاي كل تنا وأكترين ملهن واجه هدو إلا دلك إلا هذا نودسنا لها تدوان حالهن أو فيلمات شلو أو وحسو صار بدن ولا هن لكن ماشي عينو كنمت كسي هو سيبون الله بنبا أو الدنيا دي وابكسي دب مرني ما دام دلكين أو بربري والدمدي يقول لي تي أو ما عرفتي مركي عن حرني ماذا قاعدين إنه جميسي وكتير أنا هرمر سلمانتا أنا إسكيرو شعب إسكيرا مالين كستو حد مناي أنت سو كن أوقف waxaan maleynaya sanad kasta qiyaasta Soomaalida ku dhimata cid kasta way iska fahmi kartaa oo mid qarax dhameeyay mid lagu dhameeyay noqonaysay mid tahriib ay dhameysay marka daawadayaal xamdi kuweyn waxaan leenahay hambalyo gurkaaga ilaahay ka dhigay mid kale wax xasilo oo dadku inta xun ay ka naxdo waan ku rajeynaynaa in aad noqoto aroos aad wanaagsan wixii ku soo kordhana daawadayaal waan idin la wadaagi doonaa hadduu Allah awood sarali raali ka noqdo waaynu ka qayb qaadan doonaa barnaamijkan daraamisho maadaama uu yahay barnaamij faneed وبرنامج فنك كفار ويا سيدا عندي شيء أنا ورك هداي وان كسب بودو سلبرتي ملهين وحن لنا فنانين بس فنانين تاسن وحي كده حد عمر والبا إيش لبتها وكيشين وصومالي الشيدان إيه برنامج كان درام الشو داوديال برنامج كان أنت سيام كوبينا حد عنده عصبتين وصبير وسبسكرايب صار أو أنت ده نقول صبير مدة كوبان إنشرني كم النقاط داوديال تاسن وحيدين عدين إنسان صومالي سن قال له وحرينه أنت قيب تيدا كل مدة أما أنا الله اسمه مقال أركتي دم أو حيصله دراما شو adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin muddadii ay shaqeynaysay Soomaalida shidan waxaa ku xirmay dad kor u dhaafaya 100,000 qof daawade ka mid noqo dadkaasi oo nagu soo biiro subscribe saar Soomaalida shidan 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 Soomaalida shidan.
Darama Show. adiga kuuma dan laha ee dadka ha iska soocin.